ma ogtahay waxaa jira 5 shay oo aad hadda sameynaysid oo caddaynaya inaad guulaysanaysid balse nasiib daro aan cidna kuu sheegin. تبسم تبسم وخل الهموم وخل الغموم وخل الضجر ولا تبتئس من صروف الزمان ولا تشتكي من طعون البشر. السلام عليكم وأتكم حسن تهي داوشة موقال كان كسو دوو نلول قرح بدن مقعي ويبيسو سكين موقتا ديغا إنا تهي قف قولي سنية qof ku socda wadadii uu guusha ku gaari lahaa. Waxaa jira waxyaabo adiga hadda aad sameynaysid waxyaabahaas oo cadaynaya inaad noqon doontid qof guuleysta, qof meel sare gaara. Ma doonaysaa inaad ogaatid waxyaabahaasi? Hadaba calaamadahaasi waxay yihiin: kow, waxaa tahay qof og meesha uu socdo. Hatta haddii aanan kuu qornayn, haddii aad og tahay waxa adiga aad rabtid, haddii ay jiraan waxyaabo maskaxdaada ka guuxaya, waxyaabahaas oo ah waxaan rabaa inaan meeshaasi ku noolaado, qofkaas inaan noqdo, meeshaasi inaan gaaro, noloshayda sidaas inay noqoto. haddii waxyaabahan mar walba maskaxdaada ay ka guuxayaan, midaasi waxay caddaynaysaa inaad tahay qof guulaysanaya, qof nolosha meel sare ka gaaraya. hadda waxaad u baahan tahay oo keliya in waxyaabahaasi aad warqad ku qoratid oona u socotid sidii aad uga dhawayn lahayd. calaamada labaad, waxaa tahay qof dhafra. maxay tiri? waxaa tahay qof dhafar badan, soo ma ahan? haddaba waan ogahay inaad la yaaban tahay fikradan. waayo weligaaga waxaa lagu dhihi jiray ha dhafrin habeenkii, seexo in badan, soo ma ahan? haddaba midoogow, dhafartaada badan waxay caddaynaysaa inaad noqon doontid qof nolosha meel sare ka gaara, qof guulaysta. aan ku caddeeyo arrintan. runtii markii aan fiiriyay dhammaan dadka nolosha meel sare ka gaaray, ha ahaadaan muslimiin ama ha ahaadaan gaalo, dhammaantooda waxaan arkay inay ahaayeen kuwo dhafra habeenkii. balse meeshaan ayaa u baahan inaan caddeeyo. dhafartu waa guusha, waa dadka guusha gaara calaamada lagu garto. laakiin waxaa isweydiina, maxaad ku dhafraysaa? maxaa ku dhafrinaya? waa midaas. waayo aniga haddii aan dhafrayo habeenkii oo aan ku dhafrayo waxyaabo maala yacni ah, inaan saaxiibada iskala sheekaysto bes, inaan telefishinka ama filmaan iska daawado, midaasi ma caddaynayso guul. balse dadkan guusha gaaray, dadkan maanta raadkooda adduunka dhigtay aynu u wada jeedno, ee ka tageen intaasoo buugaag ah oo kutub aynu maanta wada akhrisano, way dhafri jireen. laakiin dhafartooda waxay ahayd mid wax soo saar leh. dhafartooda waxay gelin jireen wax akhris badan, wax qoris badan, wax baaris badan, fikir badan, inay khidad u dejistaan mustaqbalkooda iyo waxay mustaqbalka ay doonayaan inay ahaadaan. haddaba haddii aad dhafraysid, waa calaamad wanaagsan oo caddaynaysa inaad guulaysanaysid, balse u bedel dhafartaasi mid wax soo saar leh, mid aad ku dhafartid wax kuu taraya, wax qoris badan, wax baaris badan, wax akhris badan u bedel. run ahaantii ila fiiri, culimmada muslimiinta ugu waaweyn waxay ahaayeen ma hurdi jireen habeenkii? ma hurdi jirin, way dhafri jireen. saacado yar ayay ka hurdi jireen. saa darteeda maanta waynu u jeednaa buugaagta iyo raadka ay nooga tageen, soo ma jeedid? haddaba dhafartaada laakiin ka dhig mid mustaqbalkaaga iyo noloshaada hadhow waxtar u leh, mid aad uga faa'iidaysatid sida ugu fiican. ha ku dhafrin waxyaabo aan waxba ku taraynin, filmaan badan inaad iska daawatid, sheekaysi aan waxba qiimaa lahayn, balse u bedel dhafartaasi mid aad hadhow dambe adduunkan u dhigatid raad lama iloobaana. marba haddii aad dhafraysid, midaas waxay caddaynaysaa inaad tahay qof guulaysanaya. calaamada saddexaad, ma tihid qof nidaamsan. sidoo kale runtii waxaan arkay dhammaan dadka nolosha meel sare ka gaaray, dadka guulaystay, inaysan ahayn dad nidaamsan. badankooda run ahaantii ma ahayn dad nidaamsan, balse waxay ahaayeen dad noloshoodu ay foodo tahay. laakiin midaas macnaheedu ma ahan inaysan waqtigooda ka faa'iidaysan jirin. ma nidaamsanaa buwaagtooda, wax walba way isdhex yaaliin, laakiin waxay ahaayeen kuwa waqtigooda ay biriksi kasta ka faa'iidaysta. haddaba haddii aad tahay qof aan nidaamsanayn oo aan waxba u kala baxsanayn, oo buug meesha iska yaalo, xagga waxa iska yaaliin, oo aan waqti iyo wax u xadidnayn, wax walba iska sameeyo on waqtigiisa, laakiin aad u ilaaliya waqtigaaga,
waxay caddaynaysaa midaasi inaad tahay qof guulaysanaya oo meel sare gaaraya. markaan akhrinayo taariikhda Bill Gates iyo dhammaan dadka guusha gaaray waxaan arkay inay ahaayeen dad aan u nidaamsanayn noloshooda, wax iska fowdo, laakiin waqtigooda ay ilaalin jireen, waqtigooda ay ka faa'iideysan jireen. haddaba calaamadan sidoo kale haddii aad leedahay waxaad tahay qof guulaysanaya, ku faan nafsadaada, horena u soco, waqtigaaga oon aad u ilaali ee ha ka fikirin midaan kale, waxaad tahay qof guulaysanaya. calaamada afaraad, ma kala jeclid dadka hadalkooda. aad ay muhiim u tahay. fiiri, dadka hadalkooda waa laba nooc. mid waa mid run ah oo waxa inaga sheegayaan waa waxa anagu aynu nahay markaasi. haddaba midkaasi waynu ka faa'iideysanaynaa, waynu iska bedelaynaa waxaasi. haddii waxa inaga sheegayaan ay yihiin wax run ah, saas ayaa tahay, oo waxaasna aniga dhab ahaantii marka nafsadeeda aan fiiriyo ay yihiin wax run ah, waan ka bedelayaa nafsadeeda. markaasi waan ka faa'iideysanaa, waxba ii tahay Soomaal, waxtar ii tahay hadalkaasi. waan u baahanahay qof sidaas ii sheega, qof ceebtaasi ii sheega aniga aan leeyahay si aan u hormariyo, u bedelo, waan u baahanahay. midka kale wuxuu yahay hadal aan run ahayn oo loogu talagalay oo kaliya niyad jab, moraal jab, in iyada uu kaa dilo, in waxa adiga aad ku socotid guushaada uu kaa istaajiyo. midkaas dhigta uma dhigayo. midkaas dhiga ayaan farta ka gashanayaa, hore ayaan ugu soconayaa. haddaba kala fiiri adiga, ha ku fikirin dadku maxay dhahayaan, waxaas maxaan sameynaya. waxaa jira dad og inuu qof raba inuu guulaysto, balse ka celinaya oo kaliya dadku maxay dhahayaan. waxa uu rabaa inuu wax barto, rabaa in waxaas koorsaas uu qaato, rabaa waxaas inuu dhigto, rabaa balse wuxuu ka cabsanayaa qof heblaayo saaxiibteyda, saaxiibkayga muxuu dhihi doonaa, maxaa la dhihi doonaa, saaxiibadan ka go'aya soo ma ahan. qof waxaa jira waxaan ogahay rabo inuu isbedelo run ahaantii. wuxuu ogyahay noloshan uu ku jiro inaysan ahayn mid loogu talagalay, mid uu doonayay, balse wuxuu leeyahay saaxiibadaas ayuu ka cabsanayaa marka uu isbedelo inay ka wada cararaan. saaxiib la'aan ayaa ugu dhacaysa. keligaygaan soo istaagayaa, maxaan sameynayaa. ha ka fikirin maxaan sameynayaa iyo waa layga cararayaa. waxaad fiirinaysaa oo kaliya wax adiga aad sameynaysid ma yihiin waxaan wax alle subxaana wa tacaala uu raalli ka yahay, nafsadaadana aad ku qanacsan tahay. hore ugu dhaqaaq oona samee, dhigna ha u dhigin waxay dadku kaa sheegayaan. u fiiri oo kaliya labadaas qaab. ma yahay mid aad wax ka faa'iideyso, hore uga soco. ma yahay mid aan adigu waxa la sheegaya adiga kaa turjumaynin, markaasi dhegahaaga ka xiro, sidoo kale hore uga soco. calaamada shanaad, kuma degdegaysid guusha. aad ayay muhiim u tahay, waayo waxaa jira dad guusha u raba si dhaqso ah, saa darteeda markiiba niyad jabayaan. mid ogow, guushu kuma timaado sidaasi. qofkeena si uu u goosto miro uu beertay waxay u baahan tahay inuu muddo sugo, soo ma ahan. waa sidaas. hadda waa inaad lahaataa dulqaad badan oona u samirtaa mirahan hadda adiga aad beeranaysid. ogowna oo aamin inuu maalin soo bixi doono mirahaasi. hadda adiga ku dadaal oo kaliya sidii aad u beeran lahayd miro aad u wanaagsan. natiijadu way imaanaysaa. sideedaba guushuna waxay ku macaan tahay marka ay muddo ka soo wareegato oo adiga aad u rafaadid, dhibaatooyin badan u martid, alqaladooyin badan u martid, waxaas oo dhan ka gudubtid, markaas guulaysatid. markaas ayaad dareemaysaa macaanka guushu ay leedahay. laakiin marka aniga markiiba aan gaaro guusha ma dareemayo, waayo rafaad badan uma marin, dhibaato badan uma marin, waxba qiimo ima lahan, soo maahan. waxay qiimo ku yeelanaysaa markaad u dhibtoodid, soo ma. adiga hadda fiiri, imtixaanka adiga aad u diyaariso ood ku rafaaday sanadkii oo dhan aad wax akrinaysay, marka aad ka gaartid kaalinta koowaad maxaad dareemaysaa? farxad aan caadi ahayn, waayo waad usoo rafaaday. natiijadan hadda maanta aad gaartay kuguma imaanin si fudud. waxaad ogtahay inaad intaas dhowr bilood aad wax akrinaysay oo aad intaas baaraysay, intaas qoraysay. hadda natiijadan waa mid aad ku farxaysay. laakiin qof iska jiifay sanadkii oo dhan marka la yiraahdo waxaad gashay kaalinta koowaad, ma farxaya? isku farxad ma ahaanayaan labadan qof, waayo wuu gaaray, qofkan wuu gaaray, laakiin kuma kasbanin dadaal badan, dhibaato badan uma marin. saas darteed farxadiisu ma noqonayso sida qofkan kale, soo ma ahan. guushuna waa sidaas ayay ku macaan tahay. ha degdegin, u kaadi. marba haddii aadan degdegaynin oo aadan guushaada hadda ku degdegaynin oo aadna aaminsan tahay inay imaanayso, midaas waxay caddaynaysaa inaad tahay qof guulaysanaya oona ku socda dhabbihii uu guusha ku gaari lahaa.
haddaba intaan waa 5 calaamadood oo caddaynaya inaad tahay qof guulaysanaya, qof ku socda waddadii uu guusha ku gaari lahaa. adiga waxaa tahay qof aad u qurux badan, ka dhig noloshaadana mid aad u qurux badan. mahadsanid. على الله في كل حين تجد عونه ثابتا قد ظهر، وتقوى الإله سبيل النجاة.